aad baan dib u salaamayaa halkan waxaan diraad leeyahay macallin Mahdi ku soo dhawaada casharkeeni live-ka imika lagu jira marka insha Allah fadlan intana daawanayso dhanba waxaad soo bartaan magaalada aad ka soo daawanaysaan video-ga live-ka sidoo kale su'aalaha inoo qoran sabuurada comment-ka ku soo jawaab insha Allah haddaba casharkan maanta qaadanayna waxaan ku saabsanaan doonaa luqadda English-ka erayada la baran doono waxa weeyaan waa neither both or either isticmaalkooda insha Allah haddaba ardayda waxaa loo sheegayaa fasalada cusub marka la bilaabayo ama macluumaadka ku saabsan college-ka waxbarashada luqadaha online-ka iyo computer-kaba lambarada xagga sare iyo xagga hoose ayaad nagala soo xiriiri doontaan insha Allah aad baan kuu soo dhaweynaynaa marka casharkeena aan iska bilaabano we have the words either neither iyo both saddexdaa eray ayaan isla qaadan doonaa insha Allah lixdaa jumladood ayaan doonay inaad gelisaan waad arkaysaa soo ma marka number 1 ila number 6 we are going to use either neither or both marka sentence walba mid baa gelaya marka meesha banaan ayaa doonaya saddexdaa mid kamid ah inaad ku buuxisid kii ku habboon marka inaad isticmaalkooda garanaysid haddaba either neither iyo both macnahooda waa maxay either waxa weeyaan labada midba kii kan ama kan marka labada kii aniga habboon ama kaad adigu jeceshahay inaad siisid ama kaad jeceshahay inaad kula doorto labadaba waa isla halkii marka ama kan marka waa or waa kala doorasho either marka waxa weeyaan labada shay ama laba qof ama laba meelood ayaad kala dooranaysa neither macnaheedu waxa weeyaan labadaba midnaba laba ama saddex ama afar hadday noqdaan neither midnaba marka kaasi waxa weeyaan isagu waa negative both waxa weeyaan labadaba marka lama kala dooranayo waxa waa both labadaba la qaadanaya both this and that okay marka way yar kala duwan marka saddexdooda isticmaalkooda arday badan baan aragnay ku yar adag tahay marka waxaan doonayaa inaad practice sameysaan insha Allah ku dhawaadooda marka waxa weeyaan waa either neither both labada aad isku dhow naadaas way ku kala duwan yihiin naada xagga hore maraysa way ku kala duwan either neither okay let's begin sentence number 1 marka xagga u qoran blank space empty space Ahmed and Nasir liked it Ahmed and Nasir liked it marka maxaa lagu qorayaa Ahmed and Nasir liked it marka maxaa lagu qorayaa either is neither is both marka number 1 inta soo qortid number 1 soo qor saddexda eray mid kamid ah jumlada inoo gelisha ana comment kan digeeyay doona ku yar jawaab karo suudeen u jawaabo inkastoo waxaan doonayaa xoog saarno casharka inaad fahantaan okay let's go through it together horta intana salaam soo dhan aad baan idin wada salaamayaa jazakallahu khairan hay marka waxa weeye number 1 ka soo qoraysan arday qaar baa jawaabtii soo qoraya 1 ka lagu horeysiyo 1 ka markaad ka horeysiisid baad fahmaya marka jumlada aad u jeedid ariga lagu galay marka blank space and empty space Ahmed and Nasir liked it marka maxaad ku qornayd what is the option you would choose so should we do that okay ما شاء الله بنا دول السلام انتنا السلام زوجة ما عندك وضع قاضي ويقولون كان نقول الدوام صار جزاك الله خيرا اوكي نصور صار موضوع so this one in بدن بصحلي ولي قرأ عطينا وكيله أضيق هاي let's go through it together very good انتي نبضوات قرأتين ما شاء الله so we have the word both add-ons why also be the capital بعد كده يسا و sentence below يسا but both Ahmed and Nasir liked it labada way ka jiraan marka hadhow ku kala saari doonaa both iyo marka neither la kala saarayo ardayda intaas ay ku khalkhalaan hadhow ku tusin doonaa fahansan sentence kalaad baan ku garan doonaa markaan isbar badhiyo number 2 empty space ama blank space Layla Noor Hamda passed the exam marka maxaa la dooranayaa blank space
Layla nor Hamda passed the exam. marka waxaad oranaysaa either, neither or both. Which one? marka number 2 soo dara. number 2 baan marna ardayda qaar baa weli 3 iyo 4 soo qoraya u yara kaadiya insha Allah. number 2 aanu ka jawaabno live waan soo soconaa aanu tartiib isla qaadan insha Allah. number 2 marka 2 gaa soo qora jawaabtiisa. marka maxaa galaya ma either baa galaysaa ma neither baa galaysaa mise both baa galaya. Layla nor Hamda passed the exam. Layla nor Hamda passed the exam. Very good, mashallah. صح وتصوت قرصان. number 2 كان نوصل عليه عطيني بسوي شوية بس ترى ده نصور عليه. هديك اللي نات كوادي كلامات كل شوية بس لك قرن مايو. مركا number كان نصور عليه إن شاء الله. شوت. Very good. have 2 neither 2 neither. Very good. واضح هذا. وحنتكلم كلام نص 6 وحين والنور. مركا neither way. Neither Layla nor Hamda passed the exam. marka labada midna ba kumu guuleysan imtixaankii ama ugu dhacay. marka maxaa uu kala garanayaa marka la isticmaalayo halka both Layla nor Hamda passed the exam. ardayda qaar baa oran lahaa ardayda qaar baa soo qoran lahaa both. maxaa lagu garanayaa both waa positive and iyo way marka waa laba shay israacaya. marka haddii jumlada ku qorto labada shay oo ka dooranaya and way israacayaan marka waxa raacaysa both. haddii nor ku qoran tahay nor waa negative ولا كان ولا كاوين مركا ليلى يو ولا حمدة مركا ولا حمدة يا ليلى لابد من تونوا كومي جوليسن امتحان أما كومي باسن مركا نور إذا نيجاتيف and نو positive أتم تسمع مركا يسرعين سا مركا addition كنا وحوين نيجاتيف مركا دي هالكا both كلن هيد نور ي both كاس أيام ناس قبسنين مركا إرجع both هذا كم بقول هيد marka neither iyo nor ee israacaya. waxaan mar walba ku fikir kartaa haddaad nor aragtid xaraf ugu horeeya maxay waa na marka waa neither kaas raacay sirta intaas. number 3 baan imika u guurinaa. they are empty space busy at the moment. they are busy at the moment. marka halkan maxaa galaya number 3 iyo noo qora insha Allah. Very good, mashallah. The other one so chubby. 4, no either can be 4 will mean garin. number 3 baan marnaa ka saddexaad. they are busy at the moment. marka maxaa soo galaya they are busy at the moment. okay halkan noo soo galaya they are busy at the moment. number 3 جزاك الله خير. عباس أنا كاسف عم بقول شو شغالين عباس يعطيك الكلام. يهني ما شاء الله جامع صومالي ما شاء الله حسن منى صفة عمال ديالك انجينير محمد رضي صفة عمال مسوي شو جواب زمك يا منى. very good. number 3 they are busy at the moment. okay كاواد قرأتين انتينا بدأنا صوغتين both. هو بصدق انك lower case يعني والجملة البسطة كذا مركا فروين الاستعمال. they are both busy at the moment. they are both busy at the moment. لابد هو مشغول. number 4 أفراد empty space one is fine with me. one is fine with me. أفراد محل استعمالها one is fine with me. empty space أما blank space one is fine with me. كأفراد بنا مكملنا كأفراد كتشوى بشان. number 4 very good. جزاك الله خير. جامع صومالي شافعي عباس منى very good. قاس هاني ما شاء الله very good. صفة عماد فانسنتي مريم ما شاء الله مبارك يا دقنا جزاك الله خيرا well done. yes so correct either one. either one labada kiiba labada ku doonaha noqdo aniga waa isla arkeen aniga labada way isla caadi isla sax ila saxsin fine marka way I'm okay with it. fine I'm okay with it waan raali baan ka labada kiyaad jaashi aan raali baan ka weyn marka either one is fine with me. either one is fine with me. marka darta sama either one marka either waa labadaba
كي أجاشة كان أما كا لبض ميد النظر. Number 5 I like them as much. I like them as much. Number 5 كم حاط كبر الهيد 4 كم بصور رجني. Number 5 6 ويمين وكارين إن شاء الله. Number 5 برمرنا. Number 5 I like them either, neither, both as much. كذا دورنس. Number 5 very good ما شاء الله. جزاك الله خير وبارك يا علي. أرتي زوج شوي صورون آدم والسلام ما شاء الله. شل اللي حتى ما نرجع آدم صورون وخلاص. ده ما عاقل شيء كويس يقرأ الموضوع كل حلقة يبقى لايف كم كم حاجة إنتوا ده بنسوي كلام. I like them either, neither, both as much. Number 5. Okay. Very good. هلك خلاف يبقى كيمد قارب both دورتين قارن neither دورتين. هلك كاو ولا سكول راعي كورو ولا سكول راعي كاشرة ضالو كلام. Okay شايفينها. Okay both علي نحتر neither عباس neither gas both مرة نحتر neither ضالو كلام. Very good. So I like them both as much. I like them both as much. I like them both as much. Why is that? It's going to be positive. How can I say neither? Because I like them neither as much. What is it? I don't like them neither as much. Okay, negative. Like he said, I like them both as much. Labada was halki. Labada one can. Marka laba shaar haday noqdaan laba kabo laba hodheer oo tagay cashana labada waa jacayl. I like them both as much as one key. Labada waa isku level bay ka taageen. I like them labada jacayl both as much. Isku si baa jacayl. Okay? Si fiican. Kan ugu dambeeya marka number 6, the last one. This suit is cheap nor beautiful. This suit is cheap nor beautiful. Either bagalisa, neither bagalisa, both bagalisa. This suit is cheap nor beautiful. Okay. Number 6. Keep with the mayor. Very good, mashallah. Travis and Muhammad. Very good. Nasreen, mashallah. Shafi, jazakallah khair. Usman. Abshir, very good, mashallah. Well done. Very good. This suit is cheap nor beautiful. How to get myself from Andorra? What I'm doing is nor, nor neither. Okay. So what I'm doing is space neither cheap nor beautiful. This suit is neither suukani mid jaban na maaha sidoo kale mid qurux badan na maaha marka waa mid fool xumo qaaliya marka is neither cheap marka maaha mid jaban sidoo kale na maaha mid qurux badan marka labadaba maaha cheap oo raqiis ama jaban beautiful oo qurux badan garanaysa marka suukani labadaba maaha mana qurux badnaa mana jaban. Okay, very good. This suit is neither cheap nor beautiful. Marka both ma noqonayso waa erayga waxa ku jira nor. Halka hadii and laga dhigi lahaa this suit is both cheap and beautiful by noqonaysa. Laakiin maadaama nor lagu qoray waxa qaadanaysa neither. Hadii halkaasi noqon lahayd and uu qaadan lahaa sida kan oo kale and uu qaadan lahaa both. Marka mar walba halka ka eegasha. Jumlada dadku aragtid erayga nor neither bay inta badan qaadaysa. Haddii aad noqoto waa both. Waad fahmtay soo ma? Marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen inaad fahanteen isticmaalka saddexda eray waad ku celcelin kartaan ardayda marka xagga daba ka soo gashay live-ka markuu dhammaado dib baad u soo celin doontaan insha allah marka laga baxo page-kaad kusoo noqon kartaan bilowgaad ka soo daawanaysa videoga lagama saarayo wuu ku jiri doonaa page-ka markaa toos baad daawan doontaa ardayda dhammaan waxaan ka codsan kara daawan soo dhanba
sii sheer garaya ardayda si uga faa'iidaysato macluumaadka cidii u baahan horaan u sheegay labarda xagga sare ama kuwa xagga hoose badha kasta message-kaa taaban karta aadna waan idiin salaamayaa casharada jeceshiin inaan idiin soo duubana ama live inaan kusoo galno commentka bay noogu soo qara macluumiinta waan yara akhrinaa commentska marka cashar kale ama topic aad jeceshiin inaan idiin soo bandhigo luqadda Englishka luqadda Carabiga Faransiiska ama Soomaaliga inta bay noo soo qoraysaan mawduuca macluumaad ka hadashaan aan soo diyaarinay insha Allah marka mustaqbalka dhowna waan kusoo geli doonaa جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته